wada warqabno in hadda imika muddo uu murama ka socday dalka xusbiyada mucaaradkiina ay muranada wadeen oo arrinkaasina uu ka taagnaa qaabka loo furayo iyo cidda furaysa ururada siyaasadeed ayaa muddo muranku ka taagnaa. shirkan jaraa'id waxaan maanta u qabtay inaan halkan ka caddayno marka ugu horeysa horta qaranka Somaliland xeerar qawaaniin dastuur ayuu ku socdaa waxaana kala socodsiiyay qaab dhismeedka qaranka dastuurka Somaliland uu jideeyay xusbiga kulmiye xukuumadda talada haysa maxay ka qabaan maxaan ku dhahdaa arrintan muranku ragga qaarkood ay gelinayaan. horta marka ugu horeysa intaynu qaranka ku nahay waa buugga kooban aan hadda gacanta ku hayo ee la yiraahdo dastuurka jamhuuriyadda Somaliland. qaranka Somaliland intaas ku yahay ayuu qaran ku yahay qaranka markaa qof kasta hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu maxaan ku raahdaa ganacsada meherad ka soo jeeda yahay ila ganacsadaha meherada ka soo jeeda dastuurka qaranka ayaa u jideeyay liisan buu ku haystaa sharci buu ku haystaa nin walba intaas oo qura uu sharci ku yahay ka markuu ninku laabo sharci alaaliye sharci uu yahay iyo wax uu yahay toona ma jiraan. sideedaba markaa ummad kasta oo nool iyo qaran kasta oo nool taariikhdiisu waxbay buddhig oo ah. dastuurkan qaranka Somaliland marka aad eegto waxyaalaha uu xiganayo ararta dastuurkani waxa ay ku qotonto waxa uu tixraacayo waxa uu aasaaska ka dhiganayo waxa ka mid ah ararta dastuurkan qaranka Somaliland ee ay xusaysaa qarankanina waxa uu ku taagan yahay taariikh halgameed oo dheer oo muddo qarniye saayida maxaan ku dhahday hadda soo jirtay. dastuurka xusaya halganadaas oo ay ugu horeysay halgankii daraawiishta xarunta tale xaruntiisu ahayd ee 1900 maxaan ku dhahday la aasaasay ee maanta laga joogo 100 sanadood iyo googa ee kii maxaan ku dhahday ururadii iyo xusbiyadii siyaasiga ahaa ee SNL SNS USP NUF ay soo mareen ee kii SNM ugu dambeeyay inta dastuurkan xusaya. dastuurkan markuu sidaa u xusayo qaranka Somaliland maxaa buddhig looga dhigay maxaa laf dhabar looga dhigay maxaa aasaas looga dhigay inaha waxa sameeyay shirarkii qarankani uu nabadgelyadiisa ku soo xasiliyay ee gobol walba ka dhacay gobolkan Sool ka dhacay oo Boogaysta uu ka dhacay deegaankana martigeliyay sanaag bari shimbiraalu ka dhacay beeshaas maxaan ku dhahdaa sanaag bari ee maxaan ku dhahdaa badan iyo dhahar iyo laasqori degtaa maxaan ku dhahdaa martigeliyo kii garaadag deegaanka garaadag jooga martigeliyo kii ceerigaabo deegaanka ceerigaabo ayaa maxaan ku dhahdaa martigeliyo kii burco deegaanka gobolka Togdheer burco martigeliyo kii sheekh kii berbera kii hargeysa 790 ugu dambeeyay kii maxaan ku dhahdaa boorame labada shirweyne ee asaaska u ah midnayraahdo waa shirweynihii maxaan ku dhahdaa Grand Conference-kii waa kii burco kii boorame qarannimada Somaliland intaas lagu soo taabageliyay waxa buddhig looga dhigay waxa buddhig looga dhigay nabadgelyada kala wadaaga dimuqraadiyadda dulqaadka inta ayaa la hor la saaray inta waxa la madaxda qaranka maamusha waa hadduu madaxweyne yahay iyo xisbiga uu ka tirsan yahay iyo hadduu xisbi mucaarada yahay
oo musharax madaxweyne soo maray ama mid imika u taagan uu yahay hadduu suldaan iyo garaad iyo caaqil iyo sheekh iyo culamaa udiinkeena iyo dadka waayeelka heenin garboodka aynu nahno dadkaasaa ayuu farayaa dastuurkani inay ilaaliyaan tala wadaagga qaranka. saxaafadiina ka mida dugsiyada iyo jaamacadaha dadkaynu ku soo barbaarinayna ka mid oo dadka qaarkood meelaha qaarkood dowladaha horumaray sistamyada iyo structureka dowladda halka ay saddexda qolo inaku aynu naqaano jaamacadaha ka mida dadka lagu daro. waxaynu arrintaa kaga soo samatabaxnay dhibaato aad iyo aad fara badan, dagaalo iyo istil aad iyo aad u fara badan baynu kaga soo samatabaxnay. waxaynu kaga soo samatabaxnay burbur ka yimid dowlado kale talis ah oo qarankan aafeeyey ayaynu kaga soo samatabaxnay. waxaynu kaga samatabaxnay dhibaatada imika ka taagan Soomaaliya. waataynu shalayta isku dowladda ahayd 30 sannadood, waataynu maxaan ku dhahdaa dadka dowladda qori wada maamushahayn. maxaa sababay in ay iyaga maanta jiri kari weydo? shalayta dagaalada halkan hareeraheenu ka dhacay reer Somaliland, maamulada aynu xadka leenahay, xamar buu ka taagay, Kismaayo iyo koonfurtu ka taagay, meel walba ka taagay. waxaynu kaga samatabaxnay inta hadda aan soo sheegay baynu taladeedii ku mitidnay. sicad oo bareera dastuurkani wuxuu qeexayaa qodobkiisa 7 faqradiisa 1 iyo faqradiisa 2 waxay xadidaysaa yaa qarankan maamula. waxa uu xadidaya markaa inuu qarankani ka dhisan yahay 3 dhardhaar. halkana waxay ugu qorantahay 3 waaxood ayaa artikalka ay ugu qoran tahay. 3daa waaxood oo kala ah waaxda xeerdejinta, waxa isku markaa waaxda isku noqda golaha wakiilada iyo golaha guurtiga inoo ah waaxda xeerdejinta, waaxda fulinta, waaxda garsoorka ay u sareyso maxkamadda aynu naqaano maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriga. 3daa gole waa 3 gole oo qarankan ku wada jira, waa 3 gole oo kala madax bannaan, waa 3 gole oo mid walba waajibaadkiisa dastuuriga dastuurkani cadaynayo, waa 3 gole oo isdheeli tira. waxaa loo yidhi dhardhaarka waxaa loogu macneeyey dheriga marka dabka la saaro haddii 2 dhardhaar celin maayaan, in 3daa dhardhaar ay isdheeli tiraan. qolyaha ajnabigana waxay ku dhahdaan check and balance, way ishubiyaan, way isdheeli tiraan. mid waliba wuxuu leeyahay awooddiisa dastuuriga ah oo ka kala ka madax bannaan. intaasi markaa sidaa u shaqaynayso ee nidaamka dowladeed uu sidaa u shaqaynayo, wuxuu ku shaqaynayaa xeerka dastuurka iyo shuruucda ka dheeganta xeerka dastuurka ah. biliiska qof soo qabanaya iskama soo qabanaya, xeer baa siinaya. xeer ilaaliyaha eedeynaya iska eedeyn maayo, xeer baa siinaya. maxkamadda fadhida degmo iyo gobol iyo maxaan ku dhahdaa raacfaan gobol iyo maxkamadda sare qaranka iyo nidaam la yiraahdo dib u eegista, inta xeer baa wada siinaya. xeerka markaa la wada siinaya cid ay noo haysa ee inagu ilaalisa, ee dowladda ku ilaalisa, ee madaxweynaha ku ilaalisa, ee hay'ad kasta ku ilaalisa waa maxkamadda sare ee qaranka. arrinta markaa laga hadlayay ee ayaantan maxaan ku dhahdayay mucaaridku ay aada uga hadlayeen, cidda lagu joorfalayo xisbiyada mucaaridka waa caadi, de waxay mucaarid u yihiin inay dowladda wax ka sheegaan, ama run ha ka sheegaan ama been ha ka sheegaan. laakiin cidday iminka ayaantii dhowta la hadal hayay
la lahaa maxaan ku dhahdaayay waa meel lagu shaqaysto waa meel madaxweynuhu sharciga marsado waa meel maxaan ku dhahdaayay sharci dabada laga riixayo la keenay afafkii ka baxayay saxaafadda qaranka weynagooda garanayna waxa weeye arrinkaasi waa arrin marka ugu horeysa horta mas-uuliyad darra ku jirto waa laba waa arrin qarankan ka qaadaya sharafta iyo haybadda qaran waliba wuxuu leeyahay maxaan ku dhahdaayay haybad buu leeyahay haybadda qaranku leeyahay waa qarannimadiisa waynu aragnayo maxkamadaha markay maxkamadda fadhiyaan diraysyo gaara bay leeyihiin mararka kale ma gashadaan adduunyadoo dhan baynu la wadaagnaa haybadda iyo sharafka ayaa la ilaalinaya waxaan aad iyo aad uga xunnahay inay qarankan oo gudooga iminka koob iyo soddon jirsaday yaa in afafka noocaasihi dad doonaya berrita ka maalin inay xukunkan maamulaan oo u tartamaya inay wax xukunka qarankan dhicis ka dhigaya oo haybadiisa iyo sharafkiisa baabeynaya ay ku dhacaan furitaanka ururada siyaasadeed ama maxaan ku idhaahdayay xusbiyada siyaasadeed waxa qeexaya xeer la yidhaahdo xeer number 14/2021 waa xeerka aan gacanta ku hayo waxaad gidigin ka helaysaan waad gogolgaraynaysaan oo iminka isagoo sidiisaa ka helaysaan oo uu xeerkan saaran yahay saxiixii cabdiraxmaan ciro maantana musharax madaxweyne ah ayaa xeerkan iminka aan gacanta ku hayo ayaa saxiixiisa saaran yahay waxaa nasiib darro ah sharciga saxiixiisa saaran inuu maanta ka dhigo sharci aan jirin inuu ka dhigo mid la mala abuurayo yacniga arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u liita xeerkan maxkamadda qaranku tafsiir layskuma hayo xeerkani inuu xeer yahay layskuma hayo xeerkani inuu jiro layskuma hayo xeerkani inuu sidiisa u socdo laakiin maxaa horta asalkeedaba looga jeedaa in ururada siyaasiga la furo iyo xusbiyo siyaasiga la soo saaro ilaa imikaba qaar ba xusbiyo siyaasiga saddex xusbi qaran baa jira dastuurka qarankii ku qoran yahay kanina wuxuu ka dhigmay dastuurka qaranka ururada siyaasiga qodobka 6 dastuurka qaranka saddexda xusbi qaran sheegaya haddana faqradiisa saddexaad waxa ay sheegaysaa oo odhanaysaa maxaan ku idhaahdayay waxa ay odhanaysaa haddii loo baahdo in la sameeyo xusbiyo siyaasadeed qodobka 9 ee dastuurka qaranka dastuurka qaranka ayaa sheegaya in nidaamka axsaabta badan lagu maamulayo dalka saddex xusbi qaran ay soo baxayso haddii iyadan oo xeer gaar ahi habayn doono qaabka loo furan karo xisbiyo siyaasadeed kaasuu ku salaysan yahay qodobkan xeerkan 14 ee 2011 muxuu yahay xeerkani haddaba xeerkani waxa weeye waa tiirarka iyo lafdhabarka siyaasadeed dimuqraadiyadeed tala wadaag tala ka qaybgelida qaranka Soomaaliland xeerkan waxa loo sameeyay dood muddo dheer socotay oo ay soo saareen dadka siyaasiyiinta ah damacyada siyaasadeedna leh oo odhanaya inta badan ka duulayo siyaasadii waxay gacanta u gashay oo maxaan ku dhahdaayay monopoly ku haystay saddex xisbi qaran dooda muddo laga doonay ma dood saxaba dood sax maaha laakiin xeerka wuxuu kala saarayaa oo odhanaya haddii loo baahdo in xisbiyo siyaasadeed la furo xeer gaar ah ayaa cadeynaya xeerkana waa kan xeerkan markaa waxaa looga jeedaa inaanay cidna cidhiidhi ku noqonin
inaanay cidna jorfal ku noqonin inaanay cidna dhibaato ku noqonin habka iyo hanaanka loo marayo ururada siyaasadeed iyo ka qaybgalka siyaasadda qaranka inuu qof waliba helo oo waa qodob waa laba halkaynu marayna waxa loo marayaa markaa hanaanka xeerarka loo maro xukuumadda qaranka u soo diyaariso golaha wakiilada loogu gudbiyo labada golo ay isu gudbiyaan intaasoo dhan baa loo maraa si aanay maxaan ku raday xeerarka gaf loogu sameeyay xeerkan markaa arrintan intan maxkamadda ay ku haysay gacanta waxa weeye tafsiir inay ka bixiso ciddii mugdi kaga jiro ama su'aalaadka laga soo jeediyay markasta oo loo baahdo dastuurkan qaranka in la isku qabto ama cid ay tafsiir uga baahato waxa tafsiiraya maxkamadda qaranka maxkamadda dastuuriga ba tafsiiraysa nin waliba sidoo rabo tafsiiran kari maayo annagu marka haddaanu nahay xusbiga kulmiye xukuumadda talada gacanta ku haysa maanta ee ka soo batay jeedo xusbiga kulmiye waa marka ugu horeysa asal ahaantiisii u horeysay qaynuunkan xusbiga kulmiye mala awaalay oo hal abuuray xilligii axmed maxamed maxamuud siilaanyi uu madaxweynaha noqday iyadoo laga duulayo aragtida iyo fikirka dadka siyaasiyiinta loo yaqaan stakeholderska ay khusayso inay arrintaa kaga doodayaan ayaa la sameeyey labada goleba waa la mariyey sidaasuu ku masaxay oo uu xeer qaran ku yahay annagu hadda waxaanu aaminsannahay inaanu xeerkan ku aasaasannahay madaxweynuhu inuu xeerkan uu kow ka yahay xisbigu inuu yahay axsaabta siyaasiga ee uu dastuurkani ansixinayo xisbiga suuragalka maaha madaxweynaha qaranka siyaaso suuragalka maaha qoladani sida ay sheegayaan oo arrinaan waxba ka jirin xeer madaxtooyadu hadaladooda waxaa ka mid ah xeer madaxtooyadu ay dabada ka riixayso sababtan imika buuqan faraha badan layna geliyey intan dariiqa dheer aan ka soo sheekeeyey saaxiibadayada maxaan ku dhahday maalintii dhawata hadlayay xisbiga wadani dariiqa qarankan loo soo maray garanba maayaan muxuule faraha lagaga soo gubtay iyagu ku dheeldheelayeen waayo kumay soo gubanin laakiin dadkii dariiqa soo maray dadkii intana ka hadlaya goobjooga ka soo wadaxan qarannimada ilaaliskeeda wuu garanayaa oo markaan arrintan intaasaan soo sheegay marka ay soo marto waxa bannaan oo sharcigu bannaynaya xeerarkan in ay ogol yihiin mar walbana xusbiyada caadiga ah iyaga oo ay hogaaminayo komishanka doorashooyinku in ay u qabtaan kulamo iyo shirar kala wadaag ay kaga yeelanayaan kagana wada hadlaan arrimaha noocana markay iskoo siyaasadooda u caddaynayaan xaq bay u leeyihiin inay kala hadlaan haddaba hanaanka habraaca loo maraayo ururadan hadda maxkamaddu shalata soo saartay furitaankooda qaabka ay u furmayaan qaabka ay isu diiwaan gelinayaan shuruudaha ku xidhan ee laga eegayo sida maxaanku dhahday loo eegayo maxaanku dhahday gobolada tirooyinka ay isku soo cadaynayaan in allaaliya intan oo dhan xeerka number 14 2020 ayaa si cad u qeexaya xeerka ayaa maamulaya oo yaa fulinaya siday doorashada ay ku kala baxayaan u geliyaan shuruudaha lagu qabanaya ay ku xidhan intay yihiin laba hay-adood ba arrinka imika wixii ka bilaaba shalayta markay qaraarkaa soo jeedisay laba hay-adood baa maamulaya labada hay-adood ee maamulaya waxa weeye waa komishanka ururada iyo xusbiyada siyaasadeed ee qaranka habraacooda diiwaangelintooda shuruudahooda xeerarkooda waxa laaliya waxaasoo dhan waa urur qaran iyo
komishanka doorashooyinka qaranka oo isaguna qabanaya shalaytana maxkamaddu ay ka sheegtay sida loo qabanayo maxaan ku dhahdaa abraaca doorashooyinkooda qodobka shalayta ku jira qolada qaarkoodna ay sida khaladka uga fahamsan yihiin waxa weeye wuxuu laalay doorashadii golayaasha deegaanka ee lagu kala saarayay ururada siyaasadda xeerkana wuxuu qorayaa si ay u soo baxaan 3 xisbi qaran waxay ku soo kala baxayaan xisbiyadu waxay ku soo kala baxayaan doorashada golayaasha deegaanka deedoo qorayaa 6 gobol doorasho intaasoo gobol doorasho waa inuu xisbi qaran noqonaya waa inuu helaa 20% codadka guud ee laga dhiibtay haddii taa la waayo 3 xisbi ugu tirada badan codadka la dhiibay ayaa u soo baxaya xisbi qaran maadaama imika 4 bilood ama 5 bilood muddo aan ka badnayn aynu ka joogno doorashadii golayaasha deegaanka ururada imika la furay sugi maayaan 5 sannadood golaha nin dhamaysta doorashadii golaha deegaanku soo baxda waa inay dowladda taa ka qayb galaan waa in qiil la helaa sharci qiilka sharciga la helayana waxa soo saaraysa maxkamadda sare maxkamadda sarena way soo saartay maxkamadda sarena waxay soo saartay xusbiyada waxaan leeyahay doorashada golayaasha deegaanku inaanay ku dabranaanin maxaan ku leeyahay xusbiyada ku kala baxayaan ee loo qabto doorasho caadi ah cidda qabanaysana ay noqoto komishanka doorashooyinka xisbiga kulmiye berito saa dambe 10 casho dabadeed bisha dambe dabadeed 2 bilood dabadeed November shirku dhamaanayay doorashada madaxtooyadu ay dhamaanaysay xilli allaale iyo xilliga la qabtaa xisbiga kulmiye diid xukuumadiisu diyaar u tahay inay doorashadii madaxweynaha ka qayb galaan laakiin daanku ma maamulo madaxweynuhuna ma maamulo waxaanu warka ka sugaynaa kaltanka iyo qaabka iyo xilliga doorashada la galayo waxaanu ka sugaynaa komishanka doorashooyinka qaranka intaan ku soo ururinaya doorashadanu berigi dhawta galati 7 bay ahayd 2 golo isa saaran labadooda doorasho marka la eegana mid 8aad oo mid kala sii dul saaran bay noqonaysay dadka hoggaanka qaranku uma baahna inuu confuse gareeyo ama inuu arbush ku sameeyo ummadiisa inta aan ahayn aan anigu imika sheegay ee labada dastuurka qaranka iyo xeer number 14 uu qorayo cid alaaliye cid haysa dood siyaasi aanu kala qayb galayna haddaan xisbiga nahay oo diyaar baanu nahay isaga nimaado waxaan haynaa wacdaynteedii la hayaa oo buruufkeedii la hayaa in hadda imika ayaamihii dhaweyto goboladii socdaalada ay ku mariyeen xisbiga wadani in dadka lagu abaabulayay waa layna boobaya goormaanu boobayna doorasho lama qabanina maanu boobna tii ayaantii hore annaka maamulaynay dowladda kharashkeeda bixisay doorasho la booba waxay ku timaadaanu garanayna dad minisigu haday jaaniska hayeen waxbay boobi lahaayeen nasiibana jaaniskii baan haysanin waxay dadka ku abaabulayeen waa layna boobaya hal la diyaar garoobo dadweynuhu ha kaco nabadgelyo darro ku kaco dadkaaga waxaanad ka qaban karin hadhow talata laguma abaabulo annagu dadka waxaanu leenahay cid wax boobaysaa ma jirto annana boobi mayno ciddii wax boobaysana waanu ka ilaalinaynaa doorashooyinkeennii adduunyadoo dhamma inagu majarteen kuwaas oo kaleynu gelaynaa tiyo kalena waynu samaynaynaa 112 ergey oo ka socota dowlado iyo ururo caalamiya ayaynu keenay berigii dhaweyto oo ay ku jiraan 12 dowladood waa markii ugu horeysay ee 12 dowladood
safiiradii ka socday dowlado waaweyn oo dowladihii Yurub ah ay ka soo qayb galeen doorashadeennii warbixinta saxaafadda tiina waa faafin karaysaa waxaad ka helaysaan way soo baxdayo dabadeed waxaad ka helaysaan International Observers ki Somaliland election 2021 ayaa imika ku dhufanaysan waa ka helaysaan wax allaaleeyo wixii haybada haaya aynu soo tacabnay waxa haybadaas oo dhan burburinaya taadiyada dhan mucaaradku u jira adiyada dhan mucaarad iyo muxaafid way haystaan adiyada dhan mucaaradku cid dawladda hayso oo muxaafida bay lulayaan oo ruxayaan taa adiyadu inaguma diidana adiyadu taa way nagu abaal marinaysaa waxa leedahay meel wanaagsan baa maraysan laakiin halka qaranimada ummadaha adduunyada shakiga ay dhagelinayay ictiraafkeena waxa weeye marka xisbiyada siyaasiga ay leeyihiin waa la dagaalamaya oo ayaantii dhowta afkooda ka lahayn dagaal baa dhacaya oo ay leeyihiin waxaynu dib ugu noqonaynaa hanaankii maxaan ku dhahdaa 2004 waan ka xunnahay annagu arrinkaas ma qabno arrinkaas ma aaminsanin cid awood intaa leegaho qarankan ruuxi karaysana inay jirto ma aaminsanin dhibaatada soo maray hawsha faraha badan la soo maray marka waxaan leenahay annagu taasna waxaanu ka aaminsanahay in axsaabta siyaasiga ah ururada maxaan ku dhahdaa xisbiyada maamulaya iyo komishanka maxaan ku dhahdaa doorashada maamulaya ayaanu diyaar u nahay xeerarkaanu ku dhaqmaynaa cidii xeerarka ku dhaqmi weydana qaranku xeer buu leeyahay cidii qaranka dhibaato keenaysa xeerarkiisa maxaan ku dhahdaa joojisa aad iyo aad